sidaasi ayaa la isugu soo baxay goob fagaara ah dadka oo faraxsan markii la maqlay in la saaray oo la eriyay gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga 1960kii bishii Luulyo 1deedii ayay reer Koonfureed iska eriyeen halka waqooyiga ay iska eriyeen 26ka Juun Talyaaniga calankiisa iyo Ingiriiska calankiisa ayaa waxa dhacday in meel fagaara ah lagu siibay lana suray calanka xidigta shanta geeska ah ee buluuga ah ee Soomaaliya shanta gees ee Soomaaliyana damaashaadka ayaa meel walba sacab kala la booday waxaana la arkayay dadka oo farxad la ilmeynaya iyagoo arkaya mustaqbal wanaagsan iyo rayn u soo muuqanaysay waxaana curtay dawladii ugu horeysay oo hogaaminayay Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde kaasoo lagu doortay si dimuqraadiyad ah kagana dagay si dimuqraadiyad ah kadib markii ay diideen dadkii ka tirsanay golaha baarlamaanka Aadan Cadde kadib waxa xilka la wareegay Cabdirashiid Cali Sharma Arke kaasoo noqday madaxweynihii labaad ee Soomaaliya si dimuqraadiyad ku dheehana lagu doortay balse nasiib daro waxa dil u geystay askari kamid ah ilaaladiisa qaaska ah xilli uu socdaal ku mariyay gobolada waqooyi galbeed dilkiisana waxa lagu sheegay mid shakhsi ah oo aanan siyaasad ku sal lahayn